waxaan xirfadeeda dilka ku tababaranaya anigoo toodbi ku afuufayo tuubo yar. waxaan ku noolaa nolol qarsoon anigoo iska dhigaya qof caadi ah. isla markaantaasina anigoo qolkayga joogo ayaan maqlay cod albaabka ka yimid. qofka kaliya ee qolkayga si aamusnaan ah u soo geli karan waa madaxayga Kaato. Kaatan wuxuu ahaa joonin kana sareeya aniga. waxa uuna ii keenay howlgal cusub. howlgalkaasina wuxuu ahaa inaan galo dugsi sare. sidoo kale waa inaan helaa ninja baxsad ah oo halkaas ku dhuumanaya. anigoon ka fikirin ayaan isla markiiba aqbalay. sanduuqii la keenay waxaa ku jiray dharka ardayga iyo qalabkii ninja. qalabka ninja wuxuu lahaa awood jirka ka dhigaysa mid aan muuqan. qayb kasta oo dharka daboolan way qarsoomi kartay, laakiin sanduuq waxaa ku jirtay oo kaliya qaybta hore ee dharka. waxaan u maleynayay inaan qaybaha kale gadaal ka heli doono. intaan qalabka baarayay ayaan maqlay qayle ka timid qolka deriska ah. saaxiibkaygana qolka wuxuu ku ilooway warqad musqusha gudaheeda. wuxuu iga baryay inaan caawiyo. ninja ahaan waan aaminsanahay in howl kasta la fuliyo xitaa haddii ay adag tahay. isla markiiba indhaha ayaan xirtay, kadibna si tartiib ayaan derbiga ula raacay. waxaana isku dayay inaan waxba arkin. waxaan is iri haddii indhahaagu xiran yihiin looma tixgelinayo basaasnimo. dunidan dhexdeedana waxaa si qarsoodi ah ugu nool kumanaan ninja. qaarkood waxay iska dhigaan shaqaale ama dad caadi ah. markii ay madaxdu amar bixiso si degdeg ay u dhaqaaqaan. howlahoodu badanaaba waa dilal qarsoon. Suzuki waxay ahayd geenin cusub oo hadda shaqada bilowday. bartilmaameedkeedan wuxuu ahaa nin ajnabi ah. waxayna moodaysay inuu noqon doono howl fudud, laakiin awoodda ninka ayaa ka yaabisay. leetarka uu watay dhab ahaantii wuxuu ahaa baskoolad yar. ninjadu sidoo kale waxay leeyihiin hub fog oo wax ku dhufta. Suzuki waxay ninka kula dagaalantay buunta dusheeda. aad ayay u dheereed laakiin ma jebin karin difaaciisa. isla mar ahaantaasina Kaato meel dhow ayuu dagaalku ka daawanayay. sida xeerku yahayna ma uusan soo dhexgelin. dagaalka wuu dheeraaday. Suzukina tamar ayay luminaysay. ayadoo quus taagan ayayna qabatay ushii korontada. waxa ayna isku dayday inay koronto ku joojiso ninka, laakiin jirkiisa wuxuu ahaa mid aan caadi ahayn oo aad u adag. xitaa korontada ma dhicin karin. jug culus kadib Suzuki waa ay dhaqaaqi weysay. ninkan waxa uu soo bixiyay baskooladiisii si uu u dilo. xilligii ugu dambeeyay ayaan toodbi ku tuuray. aniga iyo Suzuki labadeenaba geeniin ayaan ahayn, laakiin qaabkeenu aad ay u kala duwanaa. haddii Suzuki ay ahayd sida dabaysha, anigu waxaan ahaa sida buur adag. weerar kasta oo uu sameeyo si fudud ayaan uga hortagay. ugu dambeyn waxaan ka qabtay qoorta ilaa aan ka adkaaday. kadibna waxa aan Suzuki ka raaligeliyey inaan howlgalkeeda soo dhexgalay. waan ogaa inaan jebiyey xeerka ninjada. inkastoo aan ahaa geenin, haddana weli ma aanan arkin cadow iga dhiga inaan awoodeeda oo dhan isticmaalo. waxaan rajaynayay in ninjiga baxsadka ah ee iskuulka ku jira uu noqdo mid xiiso badan. maalintii xigtayna waxaan gaaray iskuulka sidii qorshuhu ahaa. ururka hore ayuu ii diyaariyey aqoonsi been abuur ah, laakiin lama filaynin arday kale oo cusub inuu waqtigaas yimaado. labadeenaba waxaa nala geeyey isla fasalka. waxaa nala faray inaan galno imtixaan gelitaan. waxaan fasalka ku wareegay anigoo iska dhigaya inaan kursi dooranayo. dhab ahaantiina waxaa raadinaya calaamad sir ah oo ururka uga tegay, laakiin dhaqankaygaas ayaka si qalad ah ayay u fahantay.